gudoomiyaha gobolka Togdheer Mudane Xamse Maxamed Cabdi oo maalmihii u dambeeyay kormeer ku maray deegaanada hawdka gobolka Togdheer ayaa kormeerkaasi ku soo maray deegaanada Waraabaye, Nasiye, Dhoqoshay, Baledhiig, Yucuyabo, Harada iyo sidoo kale deegaano badan oo ka tirsan gobolka Togdheer. Haddaba gudoomiyaha waxa kulamo gaar ah la qaatay odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaasi. Kulamadaasi isagoo xog wareysanayna xaaladda ay ku jiraan degmooyinkaasi. Gudoomiyaha iyo xubnaha ku wehelinaya safarkan ayaa soo dhaweyn ballaaran kala kulmay dadweynaha deegaanadaasi. Ugu horreynba waxa ka warbixiyay xaaladda deegaanadaasi gudoomiyaha ka soo jeeda hawdka gobolka Togdheer waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan. waxaan ku soo dhaweynaa degmada Waraabaye dhulka uu baahan yahay degmadani in biyaha loo xiro oo biyaha la jabiyo magaalada waa aragtay oo dhinaca lagu ka xirantay magaaladu haddii aan ka warbixiyo degmada waxa ka xidhnayd muddo 2 sano wadadii Itoobiya ee ka soo bixi jirtay maxay haytay habuure iyo baadhay soo mari jirtay oo ka xidhnayd waqti badan baanu ka shaqeynaynay waqti badan baanu siinay qaadaan baanu ururinay kilalkii baanu la shir qaadanay adigu alxamdulillaah rabbil caalamiin maalin saddexaad waxa la noo soo ogolaaday wadadiina furanto alxamdulillaah rabbil caalamiin xamse maanta waa maalintii koowaad ee degmada noogu timi aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa degmadaadii weeye ognahay abaaraha ka dhacay iyo dhibaatada dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala waynu ka soo kabanay abaarihii dhacay laakiin dadka waxay kaga tageen dan iyo xoolo yaraan iyo ciriiri bay kaga tageen run ahaantii maanta wacyiga lagu jira iyo waayahan taagan biyo la'aan baa ka jirta magaaladan iyo deegaamadeeda dhammaantii waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo wafdida la socota qaybtay tahayba dhammaantood waxaan ku soo dhaweynayaa waji furan qalbi furan degmadii Haaji Xasan Geelle aad si qalbi furan baan xamso ku soo dhaweynaynaa gudoomiye aad iyo aad baan marka hore idinku soo dhaweynaa adigii waftigaagaba degmada Nasiye Badhasaab hore oo halkan yimi ama baahiyaha ka ogaaday ama hadii la ka dhigayo yimi Badhasaab Xamse ayaanu haynaa isagoo joogay muddo yar oo kooban oo aan 3 bilood gaarin dadaalka iyo juhdiga uu soo sameeyay oo soo booqday degmooyinkiisa iyo tuulooyinka xilka uu qaaday waxa qabaa inuu xilkii magaraysa oo loo doortay inuu aad iyo aad wax 100% u fuliyay mar hadduu soo booqday dadkiisii degmooyinkiisii dadkiisii aad iyo aad doontaan ugu aqbaleen haddana reer Nasiye waxaanu leenahay ku soo dhawow waxaanu gudoomiye kugu soo dhaweynaynaa degmada Riixiro adiga waftigaaga si sharaf leh ayaanu kugu soo dhaweynaynaa waa dalkaagii waa dalkiini socdaalkii kan inoogu xigayna waad ogeyd markii aad madaxweynaha la socotay bay ahayd alxamdulillaah aad iyo aad baan ugu kalsoonahay intiinan inaanu danaha u sheegano dabcan waxay kaloo ka mid tahay waa degmo ku taalla xuduud u dhaxaysa inaga iyo Itoobiya degmada xuduudda ku taala way ka hawl badan tahay ama way ka muhiimsan tahay degmooyinka gudaha ku yaala waxaan u gudbayaa halkan runtii markaan eego caafimaadka xoolaha iyo dadkaba runtii waa wacan yahay caafimaadka xooluhu wacan yahay wixii soo haray ee siirka waa wacan yahay 100% buu wacan yahay intii aynu Soomaaliland aynu noqonay annagu maqalkayagu Badhasaab duruqsu hoyso waa noo kow Xamse marka horta saaka waxay noo tahay subaxdii bay noo tahay annaga saaka aynu Soomaaliland aynu Soomaaliya ka go'nay ayaa beer saaka annaga noo tahay waftiga noo yimi u yimi dadkooda soo eegay waxa ay qabaan ama abaaraha dhulka ka dhacay waxaan leenahay aad baan ugu mahadnaqay gudoomiyaha gobolka Togdheer Mudane Xamse Maxamed Cabdi oo bulshada ku dhaqan deegaanadaasi goobo kala duwan kala hadlay ayaa sheegay in xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Mudane Muuse Biixi Cabdi ay ka go'an tahay kor u qaadista adeegyada waxbarasho caafimaad iyo sidii loo adkeyn lahaa ammaanka deegaanada ku tirsan xuduudka Itoobiya sidoo kale Mudane Xamse oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ciidamada booliska gobolka Togdheer ay gacan bir ku qaban doonaan dadka doonaya inay soo galiyaan khamriga gobolada Soomaaliland safarkayagii u kuurgalka ahaa ee ku saabsanaa inaanu soo marno dhammaan degmooyinka iyo deegaanada uu ka kooban yahay gobolka Togdheer si aanu xogagal ugu noqono xaaladda dhabta ay ku nool yihiin mujtamaca gobolku inuu imika halkan cagti u dambeysay aanu marinayna halayaal safarkaygu wuxuu daaraa xogagal u noqosho dadkii bal wuxuu ku nool yahay xaaladdu ku sugan yahay isha uu leeyahay ayuu ku saabsanaa waxaan idinku mahadnaqayaa warbixintii dhammaystirayd ee halkan aad ka sheegteen ee ku saabsanayd baahiyaad idinla joogta ee aad sida fiican ula shaqaystaan gacantana u siisaan
wixii intaa ka idinka mataqaanaa dheeraadana annaga idin diyaara oo gurmadkeed iyo wax walba idin la diyaara Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Burco